بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaynu maanta biidni illaahi tacaala aynu halkan su-aalo ku weydiinaynaa sheekheena fadiilatu sheekh cabdillaahi xasan xaashi albarbaraawi xafidahullah oo aynu weydiin doono su-aalo ku saabsan ramadaanta, gaar ahaan su-aalo xidhiidh la leh nawaasiisha iyo waxyaabaha soo cusboonaada ee badiyaana dadku ay isweydiiyaan, hadday tahay dhinaca caafimaadka iyo hadday tahay dhinaca safarka. su-aasha ugu horeysa ee aynu ku bilaabaynaa waxay tahay fadiilata sheikh, waa maxay xukumka ay leedahay in bisha ramadaan lagu sugo ama aragtideeda iyo soo gelitaankeeda lagu sugo xisaabta falakiga ah? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بشهر رمضان صوم كيد والركن كميد أركان إسلام كه إلهي بقى سبحانه وتعالى فرل يالي سوريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إلهي سبحانه وتعالى نعموين كيس وحا كميدة عبادات كإنه فدوديي سي إلهي سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ورب سبحانه وتعالى وكيلاليه wax kasto culays iyo mashaqo ku noqon kara adoomihiisa. sa rabbi subhanahu wa ta'ala uu yiri wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. fududeyntaasi waxa kamida inuu ilaahay cibaadaadka u yeelay calaamado dadka oo dhami garashadooda ay wadaagi karaan oo si fudud ay wada gaari karaan. waynu naqaanaa waqtiyada salaadu waxay leeyihiin calaamado dadka oo dhami ay garan karaan, qofka waxa qora ee akhriya iyo qofkaan waxna akhrin waxna aan qorin aqoon kale aan lahayn. soomka bisha ramadaana saasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay. marka la eego xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa soomka bisha ramadaan inuu ku sugmo oo bisha soo gelitaankeeda lagu garto laba arrimood. labada arrimood koodii la arkaba bishii ramadaan inay soo gashay baa la xukumayaa oo soomkiina u waajibay. arrinka koowaad wuxuu yahay bishii in la arko qof muslima oo cadliya looga qaateena sida cabdillaahi bn cumar radi allahu canhu rasuulka calayh salaatu wasalaam uu ka sheegay inuu arkay oo nebiga u sheegay inuu arkay, nebigu uu soomay dadkiina uu amray inay soomaan. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi isagoo taa caddaynaya suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi. bisha markaad aragtaan soomkii bilaaba, markaad bishii shawaal aragtaanna soomkii joojiyo oo afura, macnaheedu waa ciiddii baa soo gashay oo soomkii u dhammaaday. arrinka labaad, haddii la gaadho 29 shacbaan ay dhammaadaan oo la arki waaye bishii, waxa loo arki waaye wuxuu doonayaba ha noqdo, daruuri ha jirto, dabayle iyo siigooyin ha jiraan ama yaani jirin. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in la dhammaystiro 30 shacbaan. fain guma calaykum faakmilu ciddata 30. haddii bishii aad arki weydaan oo laydinka qariyo, tirada dhammaystira. ciddata shacbaanna axaadiista qaarkeed way kusoo aroortay shacbaan tiradeeda oo 30 dhammaystira. marka labada arrimood kii la arkaba amaba se la ogaadaba bishii ramadaan soo gelitaankeedu uu sugmaya, soomkiina u waajibaya. arrinta ku saabsan xisaabta falakiga ama lagu sugi karaa soomka bisha ramadaan waxay u badan yihiin ahlucilmigu, ilaa qowl shaada mooyaane oo macnaa mid la tirsada aan ahayn, inaan xisaab lagu sugi karin soo gelitaanka bisha ramadaan. waxaana taasi u daliila ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu cibaadaadka sida soomka iyo xajkaba calaamad iyo astaan waktigooda uga dhigay bishaanu ilahay ku xidhay. yasaluunaka can ilaahillah qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj. waxay ku weydiinayaan bilaha bisha, waxaad tidhaahdaa wakti bay u yihiin dadka oo arrimahooday ku waktiyeystaan, cibaadaadku ay ka mid yihiin, xajkana si gaaru ilahay subxana wa tacala u xusa. horena saynu u sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan laba arrimood unbuu markaa tilmaamay in soo gelitaankeeda lagu sugi karo. arrinka koowaad oo aragtidii ah, xisaab ma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam, iyo arrinka labaad oo ah 30kii bisha shacbaan in la dhammaystiro. bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inaan xisaab loo cuskan karin bisha. axkaam badan baana ku xidhan oo soomka oo qura maaha, cibaadaad iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay ciddadii dumarku ay tirsanayeen tusaale ahaan.
wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi naxnu ummatun umiya, haddaanu nahay anagu ummaddan waxaanu nahay umma umiya, oo nebigii ummaddan loo soo diray oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ahaa ummi se ilahay qur-aan ku sheegay, oo macnaheedu yahay inaanu waxa qoran akhriyi jirin, waxna aanu qori jirin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ashahru haakada wahaakada wahaakada, waa 3 tobnaad oo ta dambe nebigu calayh salatu wasalaam far uu laabay, macnaheedu waa maxay? waa 29. mar labaadna rasuulku waa ku celiyey 3 tobnaad buu sheegay farna aanu laabin, macnaa waa 30. macnaa bishu 29 way noqotaa, 30na way noqotaa. marka anagu waxba ma qoro, manaa waxba ma xisaabino bisha aragtideeda iyo dhammaadkeeda. 30kii bisha hore hadday dhammaadaan ama 29 markay dhammaadaan la arko, markaasun baanu sugaynaa inay bishii waxa weeyaan ay soo gashay. ta kale waxaan cilmi lfalak iyo xisaabaadkani maaha wax fadhiya oo yaqiina, waa wax waxa weeyaan khalad uu geli karo, sida culamaa ulfalak laftooda waxa weeyaan ay sheegaan in cibaadaadka ama soomka soo gelistiisa xisaabtan falakiga lagu sugo may ahayn mid ay yaqaaneen 3dii qarni nebigu calayh salatu wasalaam uu ammaanay, uu yihi khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum. dabadood baa dadka qaarkood arrintaasi ay la soo baxeen, wixii dadka hore diin u ahaa